magaalada Ceergaabo waa magaalo madaxda gobolka Sanaag waana magaalo taariikhi isla markaana ku suntan nabad iyo ilbaxnimo soo jireena waxayna caan ku tahay buuraha loo dalxiisay Daalo waxaana leedahay kheyraad kala duwan oo Ilaahay ku manaystay magaaladan Ceergaabo waxaana sanadihii u dambeeyay ka soo bidhaamiyay horumar kala duwan oo ay magaalada Ceergaabo ku talaabsanayso waxaana markii ugu horeysay gudaha magaalada Ceergaabo laga hirgeliyay in ka badan 6 wado oo laami ah taasi oo taariikhda noqonaysa inay yeelato Ceergaabo wadooyin laami ah balse waxa sare u kacay bilicdii magaalada Ceergaabo waxaana laga hirgeliyay dhismayaal kala duwan waxaana ku soo badanaya magaaladan Ceergaabo gaadiidka noocyadiisa kala duwan sida gaadiidka loo yaqaan tigaha ama bajaaj iyo waliba tagaasida oo hadda si weyn uga dhex shaqeeya magaaladan Ceergaabo taasoo ay suurto gelisay horumarka iyo wadooyinka laga hirgeliyay magaalada Ceergaabo waxaana magaalada kol kastoo adeegtaba ka soconaya dhismayaal kala duwan waxaana dadka reer Ceergaabo ay xilligan u ambaqaadeen oo ku tallaabsadeen dabiiyo horumarka sidaas la mid ah waxa magaalada Ceergaabo ku soo kordhaya shirkadaha kala duwan ee dhismayaasha kala duwan ee dalka oo iyaguna qayb libaax ka qaatay horumarka magaalada Ceergaabo maayirka degmada Ceergaabo Mudane Ismaaciil Xaaji Nuur intii uu joogay councilka gobolka Sanaag waxa isna qayb libaax ka qaatay horumarka gobolka Sanaag isagoo og dheer bulshada gobolka Sanaag uu sheegay in horumarka haatan ka socda magaalada Ceergaabo ay qayb libaax ka qaataan dhanka kale gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac Falay oo isna 3 sano u dambeysay ee uu ku sugnaa magaalada Ceergaabo dhexda u xidhay sidii Ceergaabo ula jaan qaadi lahayd dalka intiisa kale si kastaba ahaatee wadada isku xidha magaalooyinka waaweyn iyo Ceergaabo haddii lagu guuleysto dhamaystirkeeda waxa magaalada Ceergaabo xarunta gobolka Sanaag ay la jaan qaadi doontaa dalka intiisa kale ay waayo dheer ka goonayd warayso barihii u dambeysay ay habacsanaan weyn ka muuqatay wadada isku xidha magaalooyinka waaweyn ee Ceergaabo iyo Burco waa Adnan Cabdirashiid Cali TV-ga caalamiga Somali News magaalada Ceergaabo.